بسم الله الرحمن الرحيم مجيء ودكتور محمد معروف ما أنتوا حنكهل دونا عذر لو يقنا BID أما Pelvic Inflammatory Disease Pelvic Inflammatory Disease وعاو كدعة حبناها الترنك هواينك عاو قصو كسو بالله حبنت وجوه الرئيسية الترنك اللي يقنا فجعنا ذا وحاكلوا كدعة منك قيبيه سكالدون وأي كمتها كفكا يتبوينك منك سيدو كلا عذر كسو كدعة وكحنسيدها اللي يقنا أوفريجا waxaa cudurkan sababi kara oo ugu caansan fungi, parasite iyo bacteria laakiin midka ugu caansan oo cudurkan sababi kara waa bacteria-da noocyada kala duwan sida E. coli oo ka imaato gabadhu markay istijada u fadhiso inay soo dhaqdo saxarada kadibna ay dhaqdo kaadi haysto waxaa kale oo cudurkan sababi kara gonorrhea oo loo yaqaano jabtada iyo chlamydia oo iyadana la mid ah kuwan oo ku faafa galmada calaamadaha lagu garto cudurkan waxaa ka mid ah xanuun ku imaada qaybaha hoose ee caloosha qoyaan xubinta taranka haweenka sidoo kale dhabarka oo qofka xanuuno caadadii oo wareerto caado wareer ku dhaco xanuun ku imaada xilliga galmada iyo qandha la arka mararka qaarkood saameynta uu gabadha ku keeno cudurkan waxaa ka mid ah dhalmo la'aan taasoo ku imaato in ay xiranto ama malax ay ku dhacdo meeshii uu ka dhici lahaa fertilizationka ama bacriminta spermka shahwada iyo ovumka sidoo kale cudurkan saameynta kale uu leeyahay waxa ugu caansan ectopic pregnancy oo ah uur ku abuurmo meeshii aan ahayn minka taasoo ay ku keeni karto wax loo yaqaano occlusion macnaha waxa laga wadaa inay xiranto meeshii ay soo mari lahaayeen markay isku tagaan ama bacriminta ay dhacdo oo tubekii ama tubadii minka uu lahaa sidoo kale cudurkan saameyntiisa waxa ka mid ah inay malax gasho xubnihii taranka haweenka taasoo u keeni karto in qalliin gabadhan lagu sameeyo ama qaybo ka mid ah laga bixiyo xubnihii taranka taasoo ay u keento malaxdaas ay u keento burbur ku dhaca xubnaheeda taranka haweenka talooyinka ku habboon bulshada si ay u dogtoonaadaan cudurkan kow in lagu dadaalo nadaafadda taasoo ah in xilliga istijada gabadha ay ku jirto aysan hor dhaqin qaybta saxarada kadibna aysan dhaqin kaadi mareenka taasoo ah midda ugu badan ee u sababta cudurkan labo haddii aad isku aragtid calaamadahan fadlan la xiriir dhakhtarkaaga kadib baaritaan si loo sameeyo dawana sida ugu habboon lagu daaweeyo haddii cudurkan la arko waa in ay isdaawayaan labada qof ee lamaanaha ah sidoo kale xilliga daawada ay socota lamaanaha waa inaysan isku tagin si cudurka uusan dib ugu soo laabanin waa mahadsantihiin